من قسليال وين منكم مشعوذة كعشة هوانك يا عرورته دمرك واقع حيستين waxaad arkaysaa isaga mikrafoon la dul istaagay oo haweenkii oo dhan wada gariinaya moodo diskoteek meel music lagu tumayo kulli saasa mid walba leeda maxaa gariirinaya shayaatiintii way bal qaarkood waxa la yiraahdaa markuu ka waramay ninka la yiraahdo Xaamid Muusa wuxuu jinka markaan ku dirno oo jinkii qofkii uu xanuunsado ayaa jinka laftigiisa ma dhowno la hadlayna waxaan leenahay wariyama baxaysa adiga miyaa ninka la iika keena marba hada adiga ku yimid waa cararaya waxa laga dhigay jinka inuu asaga ka baqayo alxamdulillah thumma salatu wa salamu ala rasulillah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون إن شاء الله تعالى تضبط كم وحن ربا أرين ما أنت ودنك هذا قبضتي خاصة مقالة مقدشة يا ربنا أنا كجهد الله أنا كسرنا إن أما كلمة أن كسر قاعدنا الشرع وحوك قبنا أنا كعدنا أرنده وحوي مشعوذة عصوبة صوب حضي اللي بحي علاج كأي قرآن سارك من قس عصوبة علاج اللي بحي العلاج قرآن كإله سبحانه وتعالى إلا يسكده ويا والدين لكن صد حرمات الرقية الشرعية لغو خلافي لي ماذا إن منك هذا علاج كلا بحي الجنب عندك قرآن كوا آخر نايري قبل فربنا جوجا حمرنا هذا كصابتي رجابنا مد الله يقول شيء بنتلان مد كلا جوجي رشيا شوابتين علاج كي شرعي هانا وخلافين سيدا بينا أتاب سينو ويدات كمركب باطل كماش كجرا مركب كواد علاج كقرآن كلا يسكت ويا وإن لا يسكت وإن لا يسحفوا شيء ما هوين إذا قارت اللي قلنا جاية مرنا تونك الله قمنا مرنا فرع الله قمنا حاجة الله كأنه وباطل باطل هو وحاكوسه حاجة إن قاركود إن السرعات باستعمالان أو حاوي هذا مدخل كلا صادق قدر يرى مقدشين وجوان ملانية وحير الجنكي بأنتك تصيابه جنكي قديسي قبر باك ورميسا إن ده الله وحريا marka indhaha lagu xiro jinkii kugu jiray baa ku iimaanaya aniyo maxay iga rabtaa alle gorgortana la galay aniga horta muddo 2 bari markaan joogay maanta saddexaad ayaan wax arkay awal waxa ma leeyahay markii waxa la dhahay waxa loo jeedaa waxa isdii jiray maxaa waxa loo jeedo ana la yaabanaan jiray qafaan arkin horta ma ka sheekay karo qof markuu arko kaliya waa taajabaya maanta in door waxyaabihi aad aragtay maanta waxa ay ugu yaabka badnaa waxa arkay nin shaadaan ah adiga ugu jiray korkeyga markuu ka soo baxay oo hor istaagay markuu hor istaagaa wax weyn oo adiga guriga ka weyn badan sayd ay weyn agrabis xitaa ina birarka sidii hilbaa la soo amal sax u soo maloolan amal oo ahay ku akhri bariye inuu u jeeday gubteen warkaas waa cadi ay saaxiriin in la sarcaad way jin iyo shayaatiin bini aadanku ma arki karaan haddii noqoto in la istuso waa in la sarcaad iyo jinkii laftigiisa lagu shaqeysanayo وانا adeegsadan suxaradu jinka waa adeegsadan ilaahina wuxuu quraanka noogu sheegayaa yaani inaan la arki karin ibliis laakiin isaguna arkayo innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum isaga iyo qabiilkiisu way idin arkaan jinka iyo shayaatiintuba adinkuna ma aragtaan allah yiri sidaa subhanahu wa ta'ala idan jinkii la soo wado oo qofkii hor istaago oo uu waramo oo meesha uu ka soo raacay uu sheego way iska cadahay inay nimanku saaxiriin isu bowdaleen qisadaasna waxa aad u fashilay hadda ninka la yiri uu toobad keenay Suudaan jooga ee khadka wad ka arkaysan TV-yadu wareysanayaan Xaamid Muusa wala Xaamid Muusa waxaan isu maleynayay yiri awliyo laakiin saaxir baan haabir waxa uu shaqeynaysaa in ka badan 268 jin ah oo qofku rabo ku dirayo qofkii hadhow iimaanaya shiiqiga madaxa gacanta ka saaraya waa biskoonaya isaga soo galiya isagana ka saaraya waxa hadda la wadaa wax saa u eg weeye haweenkii waxaad arkaysaa uu mikrafoon la dhex istaagay kii in sarcaadka watay quraanna ma akhriya ninkii quraan moodayo ما قرآن يلا جوجو قرآن ما السحر ما قرآن با
cayn 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 buu dhihi ma qur'aan ba waxaasoo dhan ama yahuud buu ku celcelin qur'aankii la googooyo lagu jeesjeesaya weeyaba saddex wajiba marka ruqiya sharciya kuma aha waa marka koowaad qur'aankii waa la soo jarjaray qur'aankii la isku akhriyo la yiri ma marka labaad haween ajnabi in surka lagu dhago ama tunka lagu dhago ama gacmaha la maroojiyo xagee waa baatil kale waa fasaad waa markaas waxay yiraahdeen dhaqaatiirtu dumarku markay u tagaan bidaruura dumarka waa la baaraya dhakhtarkii maartay meelo badan oo san taaban karin buu marka kale ayuu taabanaya kana dhakhtar oo kale waa kaas wuxuu wax ku daweynayaa waa faleebo ama waa irbad ama waa faxs wax bini aadanka ilaahay barawe oo jismiga qofka in la taabto laga baaramo aan la ogaan karin taa laftigeeda hadii la helayo haweenay gabadha muslimada baarta fal khayr hadii la waayo way daruuriyadu laakiin kanu ma kan waa qur'aan wax ku daweynaya qur'aanka miyaa wata qofka in lagu dhago la ceejiyo maya qur'aanka la isku tufo si nabigu sheegay kaleey salaatu wasalaam wala akhrinaya wala isku tufay ama isaga gacmihiisa ku tufi jiray jismigiisu marin jiray kaleey salaatu wasalaam idan ruqiya sharciya ma ahan aayada la googooyay ee xuruf maanta oo asama asixir qaar ba af Soomaali man maqan af Soomaali bahwariya jinniyo bahwariya maruqiya min gislayaal weyn nimanka mushacwada waa ka cishada haweenka iyo caruurta dumarkii waa ka haysteen waxaad arkaysaa isaga mikrofon la dul istaagay oo haweenkii oo dhan wada gariirayaan mooda discotheque meel music lagu tumayo kulli saasa mid walba leedahay maxaa gariirinaya shayaatiintii way bal qaarkood waxa la yiraahdaa markuu ka waramay ninka la yiraahdo Xaamid Muusa wuxuu jinka markaan ku dirno oo jinkii qofkii uu xanuunsado ayaa jinka laftigiisa ma dhowno la hadlaynaa waxa leena wariya ma baxaysa adiga miyaa ninka la ika keenaa marba hada adiga ku yimid waa cararaya waxa laga dhigay jinka inuu asaga ka baqayo marka hore wariye wuxuu weydiisay adiga jinka isku qaabisheen bale wuxuu yiri ilaahay waa inaad ku kufrido waxaad gowracaysaa neef jinka u gowracayna bismillaahina waa ka ilaalinaynaa internetyada ku jirta ka akhriye markaasaan quraankii dhiigga neefka quraan ku qoraynaa dhiigga la daaraya khad laga dhigaya quraan baa lagu qoraya si jinkii loo raali geliyo neef bakhtiya oo ilaa geerkii loo gowracay baa quraan lagu qoraya yaani waa la cara gelinaya ilaahay shaytaanna waa la raali gelinaya mushacwadadii halkaas gaartay marka dambe jinku waa ku imaanaya waxa rabto ku qabanaya maadaama asay aad rumaysay oo u hoggaansan tahay mingislayaasha waagi juhalada la jooga maxay oran jireen marka loo tago fuqu buraalaha awoowayaal iska daaya beerka ka qabanina wadnaha u sii daaya waa faraskiina haydii shaqeeyo sameeyada maqli jirin waxa la baryayaa waa jin raaxan waa jin waa shayaatin oo fuqu buraala waa jin oo wadaado waa jin waxa la tirinayo waa jin wax malaa'igi kuma jiraan ibliis ya dhashiisi waa wixii ba maanta inta laga dhal ilaaj waxaan moodaa waliba waxa la ii sheegay marka la geeyo oo qof la geeyo xanuunsan labada ama saddexda la socotana waxa la adinka laftigiina quraan saar ba u baahantiin indhiina ay muuqde jin baa idin saaran sheekhow annagana laftigiin waliba haweenay intay tagtay ilaahay uga toobad keento ii warantay waxa ii sheegtay oo maalin iiga waramaysay waxay tiri markii aad tagto culays baaba dareemaysaa hala meesha xaruntii shayaatiinta tagtay hadhow way tir markaan soo baxay baan ilaahay bariyay ilaahay ma u toobad keenay adkaar badan baa markaas la culayska laga dulqaaday culayskaas waa maxay jimba adiga rabtiga waxa arkaysaa qof la geeyo ka bixi waa waliba ku noqonaya bil walba waa sii socda maxaa u yeelay marka jinku qabto sheekheedii buu aaday sheekheedii waa ibliiskii meesha fadhiyay kii ku shaqaysanay yeesan idinka hoos bixin diintii nabi maxamed raad kuma la gabar la ceejinayo iyo jiniyo bax waxaas waa minkiskii waa baadilkii way haweenkeennii iyo caruurteenna meesha lagu haystaa ninka ilaahay rumeeyo dumarkaaga ka cesho caruurtaada ka cesho raggu yaanay aadin ilaahay looga baqo waxaas diintii nabi maxamed maaha ceergaabo mid baa lagu sheegay noocaas oo kala rusheey waa aragtay marka biyaha saas dadka ugu yaacinay oo waliba quraanka maahan wax kala akhrinay ugu haya tuubo weyn buu iska soo dadka gariiraya quraanka in la isku akhriyo waa daawo sidii nabigu u amray bayna daawo u tahay alayhi salaatu wasalaam ee ma sida ay mushacwadiintu soo saarteen waxaan rabaa marka saddexda wajib inaad ku aragtaan ruqiya sharciya maaha marka koowaad quraan sax ma waxa la isku akhrinay waa xuruuf la jarjaray marka labaad xuruuf la jarjaray haweeneyba jirkeeda la taabanaya marka saddexaad jinkii laftigiisa lagu shaqaysanaya
jinkii baa qaar la tusay qaar waxaa lagu leeyahay xalay buu jinku wuxuu ka warramay guri wax lagu aasay 8 saaco habeenimo shiikhii aaday gaari buu qaatay wuxuu ka soo saaray isagaa aasay isagaana soo bixiyey inla saracadu waxa iyaga meesha ku sii aasta iyagaana soo bixiya xataa waxa lagu tusaya haween lagu leeyahay jismigeeda irbada laga soo saaray ma aragtay irbad baa laga soo bixinaya masaabir baa laga soo bixinaya waa lagu sixray baa la dhigi kulli waa inla saracad waxa hore u jiri jirayna ma aha habkay u adeegsanayaan baa hab jinkii lagu raali gelinaya qofkiina baqdin baa la gelinaya markaas la leeyahay daadan ka gaarin oo cilaaj ka tagin erayga quraan saar bay ula baxeen quraan saar maaha mushawada way mushawada maaha quraan saarkii sharciga ahaa dadka laga celiyo oo quraanka la barto suuratul baqara gurigii lagu akhriyo nabiga kaleey salaatu wasalaam jinkii shayaatiinta ma soo galaan suuratul baqara akhrista muawwidataynka akhrista يعني كرسي أغريستا لكن ما محي وحن إلهي بعد كل أريه كورما لبا كنا ما لبا بقلا ما صدح بقلا دمرة أو ساس له حتريني أو ميكروفون لدح بودي أو تيفي دي دوبيان وحا سوامح أخلاق حمد سوامح متاسا لأوران كرا والرقية الشرعية ودين دينين محمد عليه الصلاة والسلام مايا كعش هذا دادكينا كعش هذا قفك الله قيامها الرميو مشعودين تاس فوق برالي ياسا وفوق برالي كعش هذا saddexda wajiba uga ceshada jinkii oo loo adeegsanay qofkii oo qofkii baa jinni la soo saaraya jinni baa bari baa leeyahay jinkii aan ka saarayna iyo mid labaad ee macruuf ah TV-da ka aragtaan haweeney surka ku dhagan qoortaada xaaskaaga inuu qoorta ku dhagan ma ogolaanaysa aawo damiirkii aawo qiiradii dadnimadii aawo walaasha ma yeelaysan intuu inuu ku dhago ceejiyo lagdo maya waxaas ku ogolaateen marka jinni laga saar jinni ma wax laga saaray haduu saaraya jinbu buu saaray saa ku daray shayaatiinta iyo jinka quraanka la isaga akhriyo adigu isku akhri ilmaaga igu akhride qof u yeeray igu akhride quraanka gacan ma ku tuf ismari suuratul baqara guriga ku akhriso laakiin mushawadiintan xaamid muusa wadadiisii maray ilaahay looga baqo qof walba oo lafaaga ka badbaadi dadkaagana ka badbaadi xamar afar saldhig ama shan saldhig oo weyn baa la sheegay oo haweenku saa ugu sii socdaan oo qulqulayaanba ninkii martagaana bas waa biyaha soo cabay maxaa yeelay ibliiska adigu ku soo raacay bari markii lagu qabto meeshii baad tabaysa marka uu tagtaba uu ka guuraya saa u tira Allah sheekhan maartay mar alla markuu jinku u tago jinkii qofkii waa ilmeynaya jinkii baa ka carara ninkan baa la dhigay ma isagu la shaqeeya mushawad isagu la shaqeeya ilaahay uga baqa ninka wada xaq ku toosani dumarna ma xafuujiyo jinniya ku tusi kara ii sheega qofka inta shaytaan soo sawira ama caadi u indhaha qabso waad arkaysaa la sheekayso ku dhaay ma wala ma ku sixirin way cadahay uu ku sixiray haweeney baa ka waramaysa waan arkay jinkii kii galay baan arkay walaalo maxay iga rabtaa iri dib uu ii sheegay wuxuu ana iskala hadal bulay jinkan ku keenaya seejin u keenaya ku hor keeni kara haddaanay sixir ahayn ama jinka uusan la shaqaysanayn islaamku waa diin cizo sharaf leh looma baahna mushawada uma baahnin haddaan mingiskii fuqbaraali beenalayaashoodii baranay kan cilaajka la baxana beentiisa barta ka celiya caruurta iyo dumarka ka celiya dadka ku siran ee quraan saar mooday maanta mikrofoon iyo biisa loogu daadinay hadda soo raran ku imaanay maanta quraan saarkii ka yimid xagee quraan saar ka yimid quraan saar ma ana qofkii cilaaj baa loo bixiyay magacii cilaaj buu wataa qofkii sixir ama shaytaan baa isaga la soo saaray wallahi arrin khatarteeda la weeyada hadda goorta wax laga qaban iyagiina fariin baa u farayna mushawadiinta xaamid muusa fikirkiisa wata joogan lana ilaahay ka baqa toobad keena hadda toobad keeni weydaana ilaahay waxaan degdeg uga baryaynaa inuu adinka ummadda idinka qabto aamin daa ummadda ilaahay inuu ka qabto adinka iyo jinkiina iyo shayaatiintiina waa nimanka jinka soo saara oo dadka jinka ku dira oo balaayadan adeegsada oo irbadaha iyo wax ka soo bixiya iyo musbaarada jismiga ka soo bixiya beenaalayaal baa tiin wadadii nabi maxamedna saas maaha haddaad ku sirantihiin sida xaamid muusa toobad keena haddaydan sirneen ku tala gasheenna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa ummadda inuu ka qabto ilaahay ummadda inuu ka qabto aamiin dhaha ilaahay ha u keeno cid sankooda bir ka geliso ka cayrisa ummadda shayaatiinta noocaas oo kale ama xabsiye ka buuxisa si beentaas u dhamaato dadku waa joogi jireen wax saa oranayo mikrofoon la dhaxmaray weligii ma aragteen
maya sheekadii mingiska xagga loo bedelay ruuxaantii iyo fuqbaraali baa xagga loo bedelay cilaajna waa loo bixiyey marka horeba mikrofoonka qur'aan baa ka daaran shiikh garweyn baanu ku soo dhaweynayay waxaas leedahay meesha meel xarun diineed waa mana xarun diineed waa xaruntii ibliiska ilaahay uga baqa runtaa la isu sheego shayaadiintaas yaan la ayidin yaan loo tegin yaan dhaqaale lagu bixinin qofkii u socdana alla ka baqa jooga dhaa kuwa ceergaabo jooga iyo kuwa boosaaso hargeysa jooga iyo kuwa xamar joogaba ilaah u toobad keenan leen iyo kuwa kismaayo jooga ee noocaan u dhaqmaya ganacsiga noocaana waa ganacsi xun oo qaab daran wey oo jin iyo shayaadiin lagu shaqaysanayo wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam